السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحران جنال كمركة لسود وده أدي هذا ومهتنتين مانتا وتلادو كوبي طبعاً بشا سدحاد مارch سنة كلابا كوني يشان يلباتنك رمضان مبارك يعني ذلنا طبعاً هروين دافتي غير كيس الله نوافجي رمضان كذا مانتن مقابلكم حربينا إن ذكلا وذاقو ويلكي فلسطيني جاهون شلي يدي شاقين عندما آيس قبتين وحرين أي شلي جرسوري محكمة فدرالة وحويري ودن كلاجا ما مسافرين كرو ilaa iyo kiiskiisa maxkamadii ay go'aan ka gaarto arintaasi ayaan rabaa inaan idin la wadaago iyo mudaharaadyo ka socda Manhattan New York oo lagu dalbanayo in la soo daayo ninkii Trump ahaa waxa dagaal toos oo dhinaca canshuurta Canada ay u bilaabatay Trump waxa uu meesha uusan ka saarin wadanka dhaqaale burbur inuu sanadkan ku imaan karo markii uu axadii wareysi siiyay Fox News hadda marka Canada wala koronto ay waxay siisaa gobolada New York, Michigan iyo Minnesota qaybo kamid ah waxay dhahan 25% canshuurta ayaan ku kordhinayna isagoo xanaaqsan ayuu bartiisa True Social ninkii Trump wuxuu yiri horta sababta aan Canada koronto aan uga qaadanayno maxay tahay waxana sidoo kale uu sheegay in ay ka shalayn doonaan xaalad degdeg ah oo dhinaca korontada ayaana ku soo rogaya meelaha ay saameynayso ayuuna yiri Tesla maxaa saamiyada suuqyada ay hoos u sii dhacayeen shalay iyo maanta Tesla sidoo kalena muddo 3 bilood ninkan Elon Musk ee iskale maalqabeenka ugu weyn caalamka mumkintii dawladda uu ku mashquulsanaa haddana waxa hoos u sii dhacaya saamiyada Tesla company uu leeyahay baabuurta elektrooniga soo saaro dadkuna way iska celinayeen Trump ayaaba hadda waxa uu leeyahay Tesla qayb kamid ah Israa'iiliintuna dhinacooda ayay ka mudaharaadayeen yarkana waxa uu qaban qaabinaya dadka Falastiiniyiinta ee Israa'iiliintu ay xasuuqayeen ayuu taageero u muujinayay ardada jaamacadaha ayuu kamid ah jaamacadda Columbia University New York ku taala ayuu dhiganayay sidaas darteed waa tii habeenimada Sabtidii inta gurigiisa loogu galay waliba xaaskiisa oo uurlo 8 bilood arkayso ay ciidamada ICE ay wateen hadda waxa ay qareenkiisa sheegtay gobolka Louisiana inuu ku xiran yahay shalay mudaharaad ayaa waxa uu maanta ka socdaan Manhattan New York oo waxa lagu dalbanayaa in la soo daayo Maxamuud Khaliil waxay leeyihiin Maxamuud Khaliil ha la soo daayo si degdeg ah lagu soo daayo iyagoo sidoo kalena dalbanayo leeyihiin cadaalad ayaan u baahanahay dawladda Mareykanka waxay leedahay sawirkan ayaa aqalka cad uu soo galiyay website-ka aqalka cad waxayna leeyihiin waxaan baareynaa in uu xiriir la leeyahay ururka Hamas oo howla loo dhigma ururka Hamas ayuu waday marka suuragalnimada inuu qatar ku yahay ammaanka qaranka ayaan baaritaan ku sameynaa laakiin garsooruhu waxa uu yiri wadanka lagama masaafurin karo Maxamuud Khaliil ilaa iyo kiiskiisa maxkamadii ay go'aan ka gaarayso marka ninkan fiisihii dawladdu waxay tiri fiisihii waxbarashada waan kansaleynaa sidoo kalena green cardkiisa waan kansaleynaa ninkan waxbarashada waa uu dhameeyay laakiin hadda green card ayuu leeyahay xaaskiisuna waa citizen oo muwaadin Mareykan marka sidaa darteed waxa uu garsooruhu yiri ilaa iyo maxkamadii ay go'aan ka gaarto kiiskiisa lama masaafurin karo marka ninkaasi dawladdu ma masaafurin karto wax cadeyn oo cadna kuma hayaan marka waxay leeyihiin waxa uu abaabulayay mudaharaadyada marka shacabka Falastiiniyiinta lagu taageerayay mise Hamas lagu taageerayay arintaasi ayaa loo baahan yahay dawladdu inay cadeyso marka ilaa hadda dawladdu warkaas ayay ka soo saartay waxay leedahay baaritaan ayaa ninkan ku haynaa qareenkana waa kan hor istaagay oo yiri lama masaafurin karo ilaa iyo kiiskiisa maxkamadda ay go'aan ka gaarto qareenkiisii dhinaca ayay ka doodaysaa oo maxkamadda iyada ayaaba tagtay dadkan shacabkana way mudaharaadayaan waxay leeyihiin waa in la soo daaya Maxamuud Khaliil waliba si degdeg ah lagu soo daaya mudaharaadkaasi ay sameynayeen marka ardadii jaamacadda Columbia oo New York ku taalo iyo jaamacado kaleba teendooyinka ka hor samaystay bishii Abriil ee sanadkii hore ayay qayb ka ahaayeen markii dambena boolisku ay kala ceyriyeen qaarkoodna la xiray markii dambena dib loo soo daayay marka arintii Maxamuud Khaliil maxkamadda ayay gaartay garsoorahaasina amarkaasi ayuu ku bixiyay waxyaabaha kale ee ka soo kordhay hadii alla idmana wayna arki doonaa Trump xilligii ololaha doorashada uu waday waxa uu yiri hadii madaxweyne loo doorto dhaqaalaha Mareykanka cirkaas ayuu galaya ayuu ku ololeynay hadda axadii Fox News ayaa wareysatay waxa la weydiiyay sanadkan dhaqaale burbur wadanka ma ku dhici kara Trump waxaan ognahay arintan taariifta oo wadamada caalamka oo dagaalka kula galayo gaar ahaan saddexda wadan ee dhaqaalaha maba xiriirka ganacsi ugu weyn oo ka dhaxeeyo Canada Mexico iyo Shiinaha in wadanka dhaqaale burbur uu keeni karo haddana hadda wuxuu yiri bisha afraad ee Abriil labadeeda marka la gaaro wadan kasta oo ganacsi nagala dhaxeeyo waxaan ku soo rogaynaa canshuur inta ayna canshuuraan ayaan canshuurayna marka dhaqaalaha wadanka burbur ayaa laga cabsi qabaa shalay suuqyada waaweyn ee saamiyada caalamku hoos ayay u dhaceen sida New York hadda suuqyadan Dow iyo sidoo kalena Nasdaq iyo S&P ku dhawaad 1000 dhibcood ayay lumiyeen waana meeshii ugu xumeed muddo ku dhawaad 3 sano ayaa la leeyahay marka koboca dhaqaalaha qaybtii koobaad ee Mareykanka -2.8 ayuu maraya Mareykanka dhaqaalihiisa maba kobcayaba hoos ayuu u sii socdaa hadda
first quarterka sidaas ay hadda leeyihiin dadka ayna arrimahaas qiimeeyeen marka Trump hanjabaadahan ugu hanjabayo saddexda wadan ee heshiiska ama dhaqaalaha ugu weyn ama ganacsiga ugu weyn oo kala dhaxeeyo iyo wadamada kale caalamka waxa laga yaabaa Mareykanka in dhaqaale burburkaasi ay horseedo sidoo kale Canada iyo Mexico waa kii hadda labadii bilood la soo dhaafay mar 25% inta ku soo ragay haddana hakad kaliya haddana mar kale hakad kaliya marka waxaa jirto koronto ay gobolada Michigan Minnesota iyo New York ay dalka Canada oo siiyo ma ahan gobolada oo dhan gobol saddexdaas gobol dhan ma wada siiyo marka qaybo dhinaca xuduudaha ayuu koronto siiya marka ninka oo ka ah gudoomiyaha Ontario la yiraahdo Doug Ford waxa uu yiri 25% ayaan meelaha aan korontada siino saddexdaas gobol ee New York Michigan iyo Minnesota aynu ku soo rogeynaa korontadii aan siinayna 1.5 milyan oo dadka Mareykanka ee ku nool meelahaasi iyo ganacsiyada ay saameyn doonta arintaas marka waxa la leeyahay dadka ku nool xuduudda Mexico goboladaas Minnesota bilaha soo socdo korontadiina lacag ku korodhay ayaa ka dareemi doonta $100 ilaa $69 ayaa bishii ku kordhi doonta 400,000 ayay u dhigantaa lacagta maalin kasta ay Canada ka helayso oo dollarkeeda 400,000 dollarkeeda oo u dhigata $277,000 Mareykanka ah sidoo kalena revenue-ga kale ee ka soo galaya Canada waxa ay u dhigantaa sidoo kalena 300,000 ilaa $280,000 Mareykanka marka dollarka Canada iyo Mareykanka midka Mareykanka ayaa qaalisan marka arintaas Trump marka uu arkay ayaa Trump saaka bartiisa Truth Social ka hadallo carab weyn ay ka muuqato oo ku soo qoray uu leeyahay mid ugu horeysa waxa uu ku leeyahay maxay tahay wuxuu isweydiinaya maxay tahay sababta aan ugu ogolaanay in wadankeena wadan kale koronto uu ka qaato meel yarba korontadaasi ha siiyaan bartiisa Truth Social ayuu ku soo qoray go'aankaas yaa gaaray ayuu leeyahay waay sababta loo gaarayna maxay tahay arintan waxa uu yiri bal qiyaas uu yiri Canada oo koronto nasiinaysa anaga haba yaraatee arintan waxay saameynaysaa nolosha dad aan waxba galabsan oo arintaasi qatar ay ku tahay marka wuxuu yiri Canada waxay arintaasi ay hanjabaadu u jeedinaya wuxuu leeyahay financial price ay bixin doonaan qiimo dhaqaale ay bixin doonaan oo waliba aad u weyn waxana uu sheegay arintaasi sidoo kale in sanadaha soo socda buugaagta taariikhaha lagu qori doono hanjabaadaasi marka ayuu u jeedinaya sidoo kalena waxa uu sheegay in 25% taariiftan ama electronican oo Truth Social ka qayb kale uu ku soo qoray oo Canada ay ku soo ragtay waxaan ku amray ayuu leeyahay wasiirka ganacsiga oo la yiraahdo Howard Lutnick in 25 ilaa 50% lagu soo rogo biraha iyo aluminiyumka Canada nooga yimaado ayuu yiri taas oo canshuurtii ugu ballaarneyd ee wadan uu ku soo rogo wadamada caalamka kamid ah bari oo 12 bish ayna dhaqan galaysaa waxa sidoo kale sheegay dhinaca beeraha caanaha iyo waxyaabahaasi 250% ilaa 390% inay ku soo rogi doonaan waxyaabaha dhinaca Canada uga imaanaya marka qoraal dheer ayuu soo qoray uu leeyahay 2 bisha Abriilna sidoo kalena waxa aan ku soo rogi doonaa gawaarida dhinaca Canada nooga imaanayso marka waxa uu leeyahay waa inaan ka argoosanaa Trump wuxuu rabaa isagu inuu wadamadaasi ku soo rogo canshuura laakiin iyaguna ay ka aamusaan oo aysan waxba ku soo reebin laakiin qaniye ayaa ka fujis iyaguna waxay leeyihiin haye intaan anaguna awoodno ayaan idinku soo rogaynaa marka qoraalkiisu waa uu dheeraa oo Trump waxa uu leeyahay meesha ugu dambaysa waxa uu ku leeyahay anagoo ah wadanka ugu awooda badan caalamka oo ah wadanka ugu weyn ee weligiis jiray sidee arintan ugu dhici kartaa marka xoogaa qabweyne iyo isla weyne ayuu weli muujinaya sidaas ayuu marka bartiisa Truth Social ka xaalad degdeg ah ayuu ku soo rogay meelaha korontadu ay 25% Canada ku riisada gobolada Michigan New York iyo Minnesota dhinaca xuduudaha ay leeyihiin sidoo kalena ninkii Elon Musk ahaa waa dawladdu maalmahan ku mashquulsanaa shaqaalihii dawladda kala ceyri lacagihii dawladdu wadamada dibadda ay ku bixin jirtay dhan soo celi oo hal joojiyo marka Tesla waxa la leeyahay sheerkeedii hoos ayuu u dhacay ninkan waxa la leeyahay hadda 132 bilyan ayuu lumiyay muddo 3 bilood gudahooda wax ka yar waa intii arrimahan Trump iyo doorashadiisa iyo markii la doortay kadib uu ku mashquulsanaa dadku waxay bilaabeen gawaaridii Tesla electronic ee kamariga Elon Musk uu soo saaray inay iska iibiyaan qaarkood baakina ayay dhigeen waxa la arkayay meelaha lagu iibiyo dealerska sidoo kalena in dadku mudaharaadyo ay ku sameynayeen meelo la gubay oo jaajarada lagu jaajgaray San Francisco xitaa waa ay ka dhacday Mareykanka waxa arkayay baakindan oo baabuur Tesla yaalin oo taayaradii laga baxay marka arintaas ayaa ku socotay xitaa baabuurtan Cybertruck oo Tesla ay soo saartay dadku markay wadooyinka ku arkaan way caynayaan way ku qaylinayaan qaarkood rinjiye ayay ku qoreen marka waxayba noqotaba in gawaaridii Tesla dadkii ay ka cararaan arintaasina dadkii saamiyada ku lahaa Tesla waxay leeyihiin warniyo muhiimadii waxa saartay dawladda iyo shaqadaadii ahayn laakiin shaqadaadiina waa dayacday ayaa ninka Elon Musk ahaa la leeyahay arintaasi marka waxa ay tahay in
Trump hanjabaadihiisan oo dhinaca canshuuraha in Canada uu ka dhigayo gobolkii 51 arrintaasi waxa laga yaabaa Mexico iyo waliba Shiinaha canshuurahan uu soo rogay Mareykanka cabsi weyn ayaa jirta in dhaqaale burbur uu dhici karo ninka hadda xisbiga liberaalka ee Canada ay doortaan Mark Carney waxa yiri agajugleynta iyo hanjabaadaha Trump anaga waxba nagama dhibayso intii uu nagu soo rogo in la eg ayaan ku soo rogi doonaa marka xaaladahaasi ayaa ugu dambeeyay ninkii Trump ahaa waxa uu rabaa isagu inuu wixii uu rabo iska sameeyo laakiin iska aamuso laakiin hadda Canada iyaduna sidoo kale qaniyo adag ay ku dhufatay tan korontada haddii talaabooyin kale uu qaadan waxay sheegeen iyaguna inay ka jawaabi doonaan aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo